Hoggaanka dhaqanka maamulka degmada iyo bulshada reer Burtinle ayaa harimo sharafeed dhaqan ku qaabilay wafdigii cusla uu hogaaminayay Generaal Ayuub Cabdirasaaq. Madal dhaqan oo lagu gingimay geed quraca hoosti ayaa bulshada iyo wafdiga generaalku isku arkeen. Maamulka degmada odayaasha dhaqanka ayaa kelmado soo dhaweyn ah madashaasi ka jeediyay. runtii madashan qurxoon ee galbeedka magaalada Burtinle ee aan masaafada fiican magaalada ka soo baxnay waxaan ugu casuunay waftiga inaan daalkii iyo socodkii ilaa markay Boosaaso ka soo baxeen ilaa marka ay hawd salkiiso buuhoodla ay shir nooga yimaadeen bal in lagu nasto marka horta naga gudooma qada sharafta iyo martigelinta iyo banaanka aan idin soo saarnay waxaan ugu talagalnay nasniin maskaxiyana daalku baa inaa inta ku qaadataan soo dhawaada meel idinka jeceliya guriyiina ku soo dhawaada way soo dhaweynaa dhamaantiin meesha ay ka soo horeeyeen kabaliin eelkii baatiin ku soo dhawaada ay leenahay meel idinka jeceliyahay waa soo dhaweynaa dhammaan dadka hore waa soo dhaweynaa oo nooyi waa dalkiini waa deegaankiini waa dadkiini ku soo dhawaada waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaaladiinii magaalo idinka jecel yahay annagu haddaan reer Burtinle nahay waxaan diyaar u nahay waa arkayseen bulshada shalay soo baxaysay sababta u soo baxaysay wax ugu weyn waxay ahayd taageerada ay taageersan yihiin in ay isdoortaan waxna doortaan lana doorto oo doorashadaas qof iyo cod madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaanada baarlamaankaba lagu doorto. Generaal Ayuub Garaad Cali Marateen afayeenka Daarood Axmed Food Cadde ayaa iyaguna bulshada reer Burtinle la hadlay. safarkayagu wafdigayaga wada socday saddex qorsho ahaa qorshaha koobaad oo ahaa guushii aanu laascaana ka gaarnay iyo soo xaqiijinteeda iyo damaashaadkeeda iyo wacyigelinta sidaan u dhaqmi lahayn iyo dad guuleystay inaan noqono ana noqon dad gobol guuleystay inaan noqono ana noqon kuwa aday guuleystay ay wax dulmiyo iyo qodobka kale oo ahaa dimuqraadiyadda Puntland reer Puntland waa dhinacyada maamulayaayo hadda kuwa lagu sii sheekeynaya maaha ama loo fasiray shakhsi aad doorateen oo gacantiina kula soo baxdeen oo aan madaxweyne idin soo dirin ama gudoomiye gobolka idin soo dirin ama hiblaaye idin soo magacaabin baad haysataan oo gacantiina idin ku doorateen inta suuq tagteen shakhsi aan qof kale idin barin idin ku aqbalateen baad doorateen dimuqraadiyaddu waa intaas tii baa la hor taagan yahay waxa ka hor taaganna wax maaha hadda macna badan saa ugu sii fadhiyo waa dhowr wiil oo jiriya horta ka fujinteeda dhowrka wiil iyo ummadda tusideeda waa qodobkan meesha weyn ummadda Soomaaliyeed ama reer Puntland waa wada xor intaan gobol maray gaalka ayaa ay dhiman ayaan xornimo ka dareemaya laftigeedu ma ogi baro madax kaga duuban laakiin meel galowga soo maray caasimadii dalka ah dad gobol degan yihiin dad macaan degan yihiin dad dawladnimada jecel degan yihiin laakiin masla madax kaga duubnaa maskaasi haddaad fadhiisataan waa idin qaniinayaa haddaad istaagtaan waa idin qaniinayaa dadkaas mana fadhiin mana taagnay waa kala loobe marka dadkaas waa dadkeenni waa magaaladeennii waa magaalo madaxdeennii waa caasimadii Puntland waa muraayadii haddee muraayadii hadda caasimadii gobolka Sool baa la haystay waad ogeydeen wixii dhibaato ka dhacay iyo la duqeynayay waa la dadaalay waa la xoreeyay tabtiyo kala hadda caasimadii kala ka haystay gobolka Nugaal marka awoodii soo la gashay tiyo kala lagu xoreyn kara wallahi xariir baan idin sheegayaa dadka haysta ama maanta maska idin sheegayo ma aha mid sokeeyo ma mid ma aha gobolka dad u dhashay ma waa gobolka u dhashay laakiin waad ogeydeen laascaana haystay madax kaga duubnaa inaan baasha kaga duubnaa meesha u dhashay laakiin yaa adeegsanay dad shayada adeegsanay dadka ka duleynay kuwa kale weeye kuwa garowa madax kaga duuban marka dadka shacabka waa arkay waa loo diyaar garoobay reer Puntland hadda la sii dheerinaya waxaan leeyahay bal haddii dadaal looga maskaas laga furayo magaalo madaxda haddee qaybtiina idinka rabaayo gurmad baan idinka rabaayo sidaa laascaan ugu gurmanayseeno ama aad u geenayseen ama dalka u geenayseen saasoo kale idinkaga baahan yahay inaad halkaan ugu gurmataan cadawga laascaan laga kiciyaa galowna haysta Ismaaciil baa lacagta ku bixiya oo cadeymaheeda haynaa
maanta maxaa garow ku dhintay lacagta lagu bixiyaa muusa lacagta ku bixiya xasan baa ku bixiya intee habrood ku fiseen baa lagu bixiyaa maxmed disheen baa lagu bixiyaa intaas ugu mishaar qaataa garowe niman baan degan cawal shaqaystayaalo nimanka gaangistarada ii sheegayo magaca qabiil kula sheeganaya laakiin dadka u shaqaynaya magaaladan aad degantihiin ee Burtinle markaan gobolada Puntland la fiirsho haddaan Boosaaso iyo Gaalkacyo ka reebo waa magaalada saddexaad aan umaynaya population badan laakiin dadkeedii ma helin dadkeedii kama dhalan magaaladan dad hurda oo dhibaataysan oo waxay fahansanayn markaan saa leeyahay waa odayaasha iyo kuwooda waxbartay iyo siyaasiyiinteeda waa la hadlaya dad hurdaati magaaladaas waxaa la sheegay 48 tuulo hoos timaadaan Boosaaso ma hoos timaado meesha Qardho ma hoos timaado Garowe ma hoos timaado Gaalkacyo ma hoos timaado laakiin Burtinle hoos timaada Burtinledaas waa degmo Burtinle degmo waa ka weyn tahay mana qaadi kartaa gobol bay qaadi kartaa Burtinle reer Burtinle ilaa shalay toole ilaa maanta guud ahaan shacabka reer Burtinle soo dhaweynta milgaha leh ee qiimaha leh ee taariikhda aan hore u arag ee waxa weey noo sameeyay hadama sharafeedkan waxa weey dhaqan ee quruxda badan sida fiican loo soo agaasimeyna aan ka soo shaqeeyay laantii anigu Burtinle shalay bay ugu horeysay waa markii ugu horeysay aan imaado sawirkii aan Burtinle ka haystay iyo aan ka aaminsanaa ama sheekada markaan maqlo iyo sawirkan shalay arkay la kala yihiin inay magaalo halgan magaalo dhaqan magaalo ficil magaalo waxa weeye dad xadaariyeen joogan ay tahay taariikhda waahayay laakiin waxaan isla Burtinle inta waa ka yartaa markii lagu yiri waxa weeye waa degmo waxaan Burtinle gobol bay u qalantaaba reer Burtinle abaaradan maskaxda ka shaqaysiin wax isla talo maxaad u bixisaa reer Burtinle marka Burtinle gobonimada iyo hilka wacaan bay ku ahaydeen barwaaqadii ilaahayna weydisii horta alxamdulillah rabbil caalamiin runtii labada shakhsi waxaan isiri General Ayub iyo Afayeen Axmed Fadcade roobka qayska la yiraahdo habeen barkii budaa dadka reer miyiga way garanayaan xilli abaara ayuu habeen barkii soo gudaa dalka dhan buu wada maraa reerku uu soo kacay reertii mise wadanku waa dad wararac roobkan goormuu daay xal intaan hurudnay buu daay hadda waxa la isweydiinayaa tuulooyinka qaar bay weydiinayaan generaalkii Afayeenka goormeena dhaafay anna waxaan waa roob qayso dalka iyagoo hurday iyagoo soo jeedo way marayaan marka dalka intii aanu soo dhaafnay iyagoo hurday waxaan leeyahay generaalkii Afayeenka ku qaatay inta